السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. falanqaynteena koobkii tartankii xaliyada nabadda kulankii shalay laga ciyaaray labada kooxood labada haliyey haliyeyada farqajaan oo kabtan u yahay Bashir Jeen iyo haliyeyada Macalin Muuse oo kabtan u yahay Macalin Muuse. runtii ciyaarta ayaa waxay ahayd kulan indhaha lagu wada hayay. koox walbana waxay soo ciyaartay laba kulan hore u soo ciyaartay. Macalin Muuse kooxdiisa kulan waa soo badisay, kulanna waa laga soo adkaaday. halka farqajaan kooxdiisa kulan bareejo kulanna ay soo adkaadeen. farqajaan waxaa kabtan u ah Macalin Bashir Jeenyo. Macalin Muuse ayaa kooxdan Macalin Muuse kabtan u yahay. kulanka oo bilowday runtii labada kooxood ciyaartooyda u safanaa. Macalin Muuse Wabdul Dhabarey Diini Baashi Cali Cumar Shiino Axmed Hilowle oo fadhiyey Abuukar Weyne Said Axmed iyo Maxamed Caliyo. halka farqajaan Bashir Jeenyo Shiine Cubeyd oo fadhiyey Awan Ismaaciil Malaakh Muslimiini Cabdinaasir Fuuqaay Cali Baashi Abuukar Weyne iyo Xasan Afgoy. kulankaas ayaa waxaa runtii aad iyo aad u gacan sareysay ama u gacan sareeyeen haliyeyada kooxda Macalin Muuse. ciyaartaas ayaa waxay kusoo gabagabowday 13 gool iyo 5 gool. Macalin Muuse goolash waxaa u dhaliyey 3 gool. Macalin Wabdul u dhaliyey 2 gool. Cali gool oo aan gool ah oo iska dhaliyay kooxdiisa ka dhaliyay. Dhabarey 2 gool. 5 gool waxaa dhaliyay Cumar Shiino. Cumar Shiino ayaa wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa oo aad iyo aad u muuqday. ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa maaragtay la guddoonsiiyey. shalay runtii aad iyo aad asigi iyo ciyaaryahan Dhabarey iyo runtii jaanta si fiican isku heleen in Wabdul iyo masha Allah waa dad aad u dareemayso inay ka go'oneed shalay aad arkayso inay badiyaan. maxaa yeelay abaabulkooda tashigooda oo aad u sareeyay iyo isku xirnaantooda iyo kala dambayntooda iyo dhiirigelinta sidaad arkaysaan waa sida Dhabarey iyo dhiirigelinta Macalin Muuse iyo marshay kooxna waxyaalo lagu fahmi karay kamid tahay macnaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo